intaas kadib kulankan maanta hay'adda shaqaalaha mas'uuliyiintooda ugu sarreeya iyo qolooyinka wada shaqaynta leeyihiin baalkan idinku yeedhaan waxay tahay shaacinta kaalimo shaqo oo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhalinyaradiisu ay u tartami doonaan kaalmaha shaqo tiradoodu gaadhayso 21 qof baanu doonaynaa inay dhalinyarada kala duwan ee qaranku shaqada soo xareystaan si ay u noqoto taxaan dah rogan furan oo dhalinyarada kala duwan ee qaranku ay ka qayb qaataan dadaalka wada shaqaynta dhawaan bilaami doonta sidaad la socotaan waxa dhawaan bilaamaysa madax taabashada qaranka oo shaqaalaha kala duwan ee dawladda la soo ogaan doono tiradooda rasmiga ah si qiyaas iyo qorshaha hadda looga dhigo wixii caagle iyo qalad ku jireen looga saaro si taas u dhacdo hay'adda shaqaalaha dawladda iyo shirkadaha wada shaqeeyaan oo kamid yihiin Extra Inside iyo SSG waxay isla qaateen in loo baahan yahay tiro dhalinyarada shaqaalaha hay'adda joogta tiro ka badan inay la shaqeeyaan si baahida ay dhammaan gobolada iyo goobaha kala duwan u gaarno haddaba hay'addu iyadoo arrinta ka duuleysa waxaanu soo helay inaan u baahanay 21 qof oo arrinta naga kaaliya nagana caawiya madax taabashada kala duwan ee qaranka aanu ka bilaabayno sadarteed dhalinyarada kala duwan ee qaranka waxaanu soo bandhigaynaa inay kaalmaha shaqo soo xareystaan berito oo salaasa bay qabashada siifiyadu bilaami doontaa shuruudaha waxa ugu muhiimsan qofku inuu noqdo shaqaalada inuu ahaan shaqaale dawladeed qodobka labaadna inuu yahay jaamacad ka soo qalinjibay qof walba oo jaamacad ka soo baxay wuxuu u bannaan inuu soo xareysto shaqadan si uu uga qayb qaadan karo imtixaanada kala duwan ee lagu soo baxayo muddada kontraagaasi soconayo inta guuleysata baanu ka wada sheekaysan doonaa oo laga saxiixi doonaa muddada qaranka hawshiisa qaran ee la qabanayo ay nagala shaqeyn doonaan hadii la yiraahdo berito oo salaasaabay furmaysaa waxay xirmi doontaa qabashada siifiyadu sabtida 12 duhurnimo sabtida 12 duhurnimo ay joogsan doontaa qabashada siifiyadaasi axaddu waxay noqon doontaa kala hufida maalinta isniintaana oo isniintaadana waxay noqon doontaa maalinta imtixaamada loo fariisanay hadii la yiraahdo calaf wacan nasiib wanaagsan iyo mar walba kaalmihii gacanteena ku soo dhaco sida cadaaladda aynu u baahino oo noqoto fursado qaranku ay u siman yihiin inay tartankaasi ka wada qayb qaadan karaan calaf wacan nasiib wacan iyo soo xariis wanaagsan insha Allah. Assalaamu calaykum.